بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idiin soo gudbinayaa qiso aad iyo aad u cajiib badan. inta aanan guda gelin fadlan subscribe saar channelka si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan soo geliyo gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada muuqaalkan soo geliyo. qisadan ayaa waxa ay dhex martay laba ruux oo lamaana ah. lamaanahan ayaa lagu kala magacaabayay Axmed iyo Maryama. muddo 6 sano ah ayaa ka soo wareegatay markii ay isguursadeen. wax caruur ahna iskuma aysan dhalin. habeenada ka mid ah iyaga oo is-agjiifa ayay sheekaysteen, waxayna isweydiiyeen iyaga oo codkooda hoos u dhigaya sababta ay ilmo u heli laayihiin. sheekadii ayaa ka dheeraatay, waxayna isku beddeshay buuq. ugu dambeyntiina waxaa lagu heshiiyey in dhakhtar baaritaan birita ay u tagaan si loo ogaado dhibka halka uu jiro. iyaga oo qofna aanan u sheegin ayay subaxii dhakhtarkii aadeen. baaritaan kadib Axmed ayaa waxa uu u soo galay dhakhtarkii waxa uu Axmed tusay natiijadii baaritaanka taa oo ahayd in Axmed uu caafimaad ahaan wanaagsan yahay, balse Maryama ay qabto xanuun isla markaana aysan suurtagal ahayn in ay uur qaado. waa sida dhakhtarka uu sheegay. waxauna intaa ku daray in aanan rajo laga qabin in ay ka bogsato xanuunkaasi. Axmed markii uu natiijada arkay waa uu murugooday. hase ahaatee Axmed waxa uu ogsoonaa in wax waliba ay u dhacayaan sida Allah subxaanahu wa ta'ala uu ugu talagalay. waxa uuna u mahadnaqay Allah. Axmed waxa uu dhakhtarkii u sheegay in uu xaaskiisa u wacayo si ay gudaha u soo gasho, laakiin waxa uu Axmed dhakhtarkii ka codsaday in uusan u sheegin xanuunka ay qabto, dhibkana uu dhankiisa yahay. dhakhtarkii arrintaasi inuu sameeyo waa ay ku adkaatay, waa uuna ka diiday. Axmedna waa uu ku adkaystay ilaa ugu dambeyntii dhakhtarkii uu ka ogolaaday. waxaa loo yeeray Maryama. markii ay gudaha soo gashay waxaa loo sheegay in uu xanuun qabo Axmed, ka oo rajo aanan laga qabin in uu ka bogsoodo, isla mar ahaantaana aanan suurtagal ahayn in ay ilmo dhalaan, balse iyadu ay fiican tahay, caafimaadkeedana uu wanaagsan yahay. Axmed markii uu warka dhakhtarka uu maqlay waa uu aamusay. waxa uuna fiiriyey Maryama isagoo wejigiisa ka muuqata sida qof nolosha ka qoostay oo kale. lamaanihii waxay ku soo laabteen gurigooda. arrintii ka soo baxday baaritaankii labadooda waxa ay si tartiib ah ugu faaftay deriska, qaraabada iyo weliba saaxiibadooda. noloshoodii ayay iska sii wateen iyaga oo dulqaadanaya. balse markii 5 sano ay ka soo wareegatay xilligii baaritaanka ay sameeyeen, Maryama waa ay dulqaadan weysay. waxa ayna u timid Axmed si ay ugu sheegto go'aankeeda kama dambayska ah. waxa ayna ku tiri, Axmed, aniga iyo adiga waxaan isqabnaa muddo 12 sano ah. intaasna wax caruur ah ma aanan helin. anigoo weligay kuguma soo hadal qaadin furiin, balse qoyskayga iyo saaxiibadayda way igula taliyeen in badan in aan furiin ku weydiisto. anigana taa kama yeelin, aniga oo ogsoon in aad tahay ruux madhalays ah. laakiin markaan waxay u muuqataa intaas ka badan in aanan sabri karin. fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad iska kayfurto si aan u guursado nin kale oo aan u helo ubad ay indhahayga ku doogsadaan. Axmed markii uu maqlay hadalka Maryama ka soo yeeray, run ahaantii waxa uu ahaa hadal uusan ku farxin. waxa uu ku yidhi, soo ma ogid Maryama, arrintaani oo idil in ay tahay amar Allah subxaanahu wa ta'ala xaggiisa ka imaanaya, loona baahan yahay in aynu ku sabarno. isagoo intaa u raaciyay in muddo kale ay siiso, laga yaabee in ay wax isbedelaan. Maryama way ka aqbashay iyadoo u sheegtay in ay siinayso muddo 1 sano ah. haddii sanadkaasi ay wax isbedeli waayaanna ay kala tegi doonaan. sidaasi ayaana lagu heshiiyey. maalmo yar kadib Maryama ayaa xanuunsatay, isbitaalka ayaana la seexiyey. xaaladeedana aad ay u liidatay. natiijadii baaritaanka waxa ay noqotay in mid ka mid ah labadeeda keliyood ay howlgab noqotay. Maryama markii ay ogaatay natiijada waxay la hadashay Axmed oo ah ninkeeda, iyadoo dhahaysa, arrintaani oo dhan waxay iigu dhacaysaa adiga dartaa. maxaad mar hore isaga kayfuri weysay? anigu waxaan rabaa in aan caruur helo. waxaan rabaa in aan ilmahayga arko. haddii aan hadda sidan gablanka ah ku dhinto, bal ka waran, waa adiga dartaa ay markaasi Axmed ku tiri. Axmed waxa uu ku yidhi, anigu waan baxayaa, safar dibadda ah ayaan u socdaa. waan ka xumahay dhibka ku haysta. waxaan kuu rajaynayaa in aad dhowaan bogsooto insha Allah. Maryama iyadoo caraysan ayay la hadashay, waxayna ku tiri, orodoo iska bax oo meeshaa doonta aad, waayo adiga ma tihid qofka sariirta saaran ee xanuunka haya. Axmed waxa uu jawaabay, waan baxayaa, laakiin waxaan u baxayaa in aan raadiyo qof kili kugu deeqa. maalin ka hor maalintii qaliinka ay geli lahayd Maryama ayaa waxa u yimid dhakhtarkii. waxa uuna u sheegay in la helay kilidii loo gelin lahaa, baaritaan qaliinna lagu samayn doono. Maryama waxa ay soo xasuusatay ninkeeda iyadoo isweydiinaysa, tolow waa nin nuucee ah, adigoo birita qaliin gelaya ayuu iska maqan yahay. si kastaba ha ahaatee qaliinkii waa lagu guulaystay. isbuuc kadibna waxaa soo laabtay Axmed. qaliinkii ay Maryama gashay muddo 12 bilood ah markii laga joogo
maryamo way umushay waxay iyada iyo axmed heleen canugoodii ugu horreeyey aad ayayna u farxeen noloshoodiina way isbeddeshay maalin maalmaha ka mid ah axmed waxau guriga ku ilaabay buug yar oo xusuus qor u ahaa kaa oo ay ku qorneed sir uu muddo qarinayay axmed waxa uu buugga ugu dultegay miiskii uu ku quraacanayay maryamo ayaa aragtay buuggii way furtay si ay u eegto waxa ku qoran mar allaala iyo markay aragtay sirta ku qoran buuggan maryamo waxa ay ku dhowaatay in ay sarajoogga ka dhacdo sababtoo ah sirta ku qoran waxay ku saabsan tahay iyada iyo saygeeda isla markiiba waxa ay wacday axmed markii uu yimid way ilmaysay wayna raaligelisay markii ay raaligelisay kadib maryamo muddo 3 bilood ah ma aysan eegi karin axmed wejigiisa xishood iyo yaxyax dartiisa qofka kelida ugu deeqay ma aha qof kale ee waa isla axmed dhakhtarka ayuu ku sir qarsaday ilaa iyo inta uu ka bogsoonayana qol dhakhtarka uu og yahay ayuu markaasi ku jiray maryamana waxa uu ugu sheekeeyey inuu safar dibadda ah aadayo waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan haddii aad ku cusub tahay janaalka fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan soo geliyo gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada mahadsanid